إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا إن شاء الله تعالى waxaan kaga hadlaynaa darsigan في فضل شهر ذي الحجة bisha carafo fadliga ay leedahay قال الله تعالى والفجر وليال عشر الله سبحانه وتعالى قرآنك wuxuu ku sheegay oo wuxuu ku dhaartay Allah fajarka iyo habeeno 10 ah أكثر المفسرين تبدنكودو waxay ku sheegeen 10ka casho ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku dhaartay in ay tahay al-ashr al-awwal min shahr dhil hijja 10ka ugu horeyda ee bisha dhul hijja nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri xadiis uu warinayo ibn Abbas radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام ما الممتشران بوير النبي صلى الله عليه وسلم عمل وناكسن للسميو ما المها دحذوذة وإلهي كجعلي هاي ما المهان يعني طبنك مع الموضع وقهر إذا بشاد الحجة عملك للسمية إلهي سبحانه وتعالى مالمو كجعل يهاي ما أي جيران مركز أصحابته حيكو يرادين ولا الجهاد في سبيل الله جهاد كان قال ولا الجهاد في سبيل الله الله درتي أولو جهاد حتى ويكفل لبدنيهن طوانك مع الموت عملك للسمين إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء إلا أن النفس ديسي بحيي مالكي سنة بحيي وأن وحبك لسو نقن نوعاس جهاد كمويه نوع يدك لي جهاد كأن نف كلي إن لبحيو أما مال كلي إن لبحيو طوانك أما الموت باكفض لبدن بوير النبي صلى الله عليه وسلم halka waxa ka garanaysaa marka maalmahan inay yihiin maalmo aad iyo aad u qiimo badan oo la doonayo in la dadaalo Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu u jideeyay adoomadiisii inay soomaan maalmahan gaar ahaan 9ka maalmood ee ugu soo horeeya ee bisha dhul hijja inay soomaan ayuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala u jideeyay marka laga reebo maalinta tobnaadka iyadoo la soomi maayo maalintaas waa yawmun nahr way maalintaas waa maalinta tobnaad waa maalinta dhundhowga la yiraahdaa waa maalinta ciidul adha waa maalinta waxa weeyaan udhiyada la sameeyo weeyaan waxyaabahan loo jideeyay maalmahan waxa kamid ah inaynu badino dhikriga Allah subhanahu wa ta'ala gaar ahaan takbiirta inaynu badino waxa yeelay Allah wuxuu quraanku ku yiri wayadkuru ismallahi fi ayaamin ma'luumatin ina ilaahi xusaan maalmo la yaqaan maalmaha la yaqaan waa maalmaha waxa weeyaan 10ka ah weeye sida jumhuurul ulama ay sheegeen waxa kale oo bishaan dhexdeedii ku jira maalmo la yiraahdo al-ayyaamul ma'duudat maalmo fara ku tiris ah maalmahaas waxa weeyaan waa ayaamut tashriiq weeyaan maalmaha udhiyada la sameeyo 11 12 13 marka waxa sunna ah in la badiyo maalmaha 10ka ah tahliil in la badiyo la ilaaha illa allah takbiirta in la badiyo allahu akbar tahmiida in la badiyo alxamdulillah in lagula jahro suuqyada sida ay sameyn jireen labada saxaabi ee waaweyn Abdullah ibn Umar iyo Abu Hurayra radiyallahu anhuma labada waxay aadi jireen suuqa markaas ay la takbiirsan jireen dadkuna takbiirtooda maadaama qof kasta uusan awoodin inuu xajiyo
waxa weeyaan xajku waxaa shardi u ah qofku inuu haysto hanti waxa weeye marka uu ku xajiyo awood ayaa shardi u ah marka qofka aan xajin karin waxaa loo jideeyay camal uu samayn karo camalkaas waxa weeyaan oo ka fadli badan jihaadka markaa ka fadli badan oo ah inuu waxa weeyaan maalmaha 10ka ah ee uu dadaalo markaas maalmaha 10ka ah waxaa ku dhex jiro maalin la yiraahdo yawmu carafa maalinta carafa maalinta la yiraahdo waa maalinta sagaalaad alladhi huwa afdalul ayyam waa maalmaha dunida maalinta ugu fadliga badan weeyaan sidaas ayaa wariyay ibn Hibban saxiixiisa uu ku wariyay xadiis laga warinayo Jaabir radiyallahu anhu nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu yiri afdalul ayyam yawm arafa maalmaha waxa u fadli badan maalinta carafo maalinta in la soomo waa sunno ligayr alxaaj qofka xaajiga intaan ahayn way soomayaan laakiin xaajigu ma soomayo asagu waxa weeyaan cibaadada ayuu wuxuugeysanayaa maalintaas soonku iska daynaya fadli weyn baa laga helayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam baa la weydiiyay maalinta carafo ee sagaalaad ee xujaydu carafo ay taagan yihiin soonkeedii fadliga laga helayo wuxuu nabigu ku sheegay yukaffiru as-sanata al-maadiyata wal-baaqiya sanadkii tagay iyo mid ka harsan ayuu waxa weeyaan dambi dhaaf u yahay marka 2 sano dambi dhaafkoodii oo dambiyada yararka Ilaahay uu kugu dhaafayo ayaa waxaad ku helaysaa hal maalin aad soonto maalinta sagaalaadka waa maalin aad iyo aad u fadli badan waa maalinta maalmaha dunyada maalinta ugu fadliga badan weeyaan nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiis wuxuu ku yiri ma min yawmin akthar min an ya'tiq Allahu fihi 'abidan min an-nar min yawmi 'Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihim al-malaa'ika maalin ma ay jirto buu yiri nabigu oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala adoomo uu ka xoreynaya naarta maalin kaga badan maalinta carafo ma jirto Ilaahay uu soo dhawaanaya khalqigiisa uu soo dhawaanaya dhawaansho asagu garanayo anagu aanan garanaynin deedna Ilaahay wuxuu ugu faanayaa malaa'iktiisa ugu faanaya xadiis kale ibn Hibban uu warinayo wuxuu leeyahay Jaabirna laga warinayo nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ma min yawmin afdalu 'inda Allah min yawmi 'Arafah ينزل الله إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا حاجين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم ير أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة وحلي النبي صلى الله عليه وسلم مجرت مال كفضل بدن إله سبحانه وتعالى اكتيس مال كفضل بدن مجرت مال تعرفه الله baa soo degaya samada adduunyada ayuu imaanaya degid asagu uu garanayo anagu aanan garanaynin markaas uu dadka arlada jooga ugu faanaya ahlu samaha wuxuuna ku leeyahay ahlu samaha waa malaa'igta fiiriya adoomadeedii ayagoo basaasan oo booreysan oo xajinaya ka kala yimid dacalada adduunyada rajaynaya naxariisteyda ay marka ayaan arag cadaabteedna ayaan arag ma ay jirto buu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam maalinta maalin ka badan oo Ilaahay adoomadiisa naarta uu ka xoreynayo Sufyaan ath-Thawri rahimahullah baa la weydiiyay maalin carafo iyada la joogo man aswa'ul khalqi halan baa la yiri dadka yaa ugu xaalad xun maanta markaasuu yiri waa midka malaynaya inuusan Ilaahay u dambi dhaafaynin waa maalin shaydaanku aad u caroonayo maalinta carafo ee sagaalaadka سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وشاقي ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أغيض من يوم عرفة وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام ما يشرتب يري مال وشيطان كوحويان كيران بدنيهي كعيل بدنيهي أو كعرب بدنيهي مال انت عرفة وحكى لنا ما أبو النبي صلى الله عليه وسلم وحاسد شيطانكو wuxuu arkayaa naxariista Ilaahay oo soo degayda Ilaahay subhanahu wa ta'ala adoomadiisa uu dambi dhaafay dambiyada waaweyn intaas oo la caroonaya maalinta sagaalaadka duco lagu duceysto waxa uu fadli badan ducada nabiga sallallahu alayhi wasallam inoo sheegay oo ah khayru du'aa'i du'aa'i arafa khayru du'aa'i du'aa'u arafa duco loo duceysto waxa uu khayr badan ducada arafo aniga iyo nabiyada iga horeeyeen waxa ay ku duceystaan waxa uu khayr badan لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
وهو على كل شيء قدير. weli waxaynu ku guda jirnaa maalmaha fadliga badan ee bisha Dulxijja. isla bisha waxaa laga helayaa maalinta tobnaadka ah oo loo yaqaano yawmun naxri, maalinta dhundhowga. waa maalinta loo yaqaano yawmul xajj al-akbar, waa maalinta xajka ugu weyn oo ay muslimiintu dhameystiranayaan xajkoodii oo ahaa tiirkii shanaad ee tiirarka islaamka. 4 camal oo waaweyn bay gudanayaan maalintaas oo ah inay tuurtaan jamaraadkii, oo inay xiirtaan timahoodii ama ay gaabsadaan, in ay dawaafaan dawaaful ifaada, dawaafkii la dhihi jiray, iyo in ay qalaan hadyigii marka ay qalaan. 4 camal bay sameynayaan marka. maalinta waxa weeyaan camal ilaahay loogu dhawaado waxa u fadli badan waxa weeyaan in xoolo la qalo. dadka xujaayada ah waxa weeyaan hadyigoodii bay qalayaan. dadka xujaayada aan ahayn ee halka jooga waxa la rabaa inay udxeystaan oo waxa weeyaan qof walba wuxuu awoodo inuu markaa ku udxeysto. sunnadii nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam weeyaan, waa sunnadii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam, oo qofku waxa weeyaan xoolaha uu qalayo ilaahay hilbahoodii iyo dhiigoodii gaari maayaan, laakiin alla ka cabsidaas ayaa ilaahay agtii waxa weeyaan ay gaaraysaa. marka tin kasta oo xayawaanka uu qalay ajar buu ku yeelanayaa. marka waa in loo degdegaa maalinta tobnaadkaana in la udxiyeysto. waxaa ka dambeeya maalintaas 3 maalmood oo la yaqaan ayaamu tashriiq. maalmaha ayaamu tashriiq la yiraahdo waa maalmaha la udxiyeysto. ayaamu minan waa la yiraahdaa maalmaha mina ay joogaan xujayda. nabiga yiri sallallahu alayhi wasallam ayaamu mina ayaamu aklin wa shurbin wa dhikrin lillahi azza wa jal. maalmaha mina waa maalmo cunid iyo cabid ah iyo maalmo ilaahay subxaanahu wa ta'ala la xuso. waana maalmaha loo yaqaan al-ayaamul macduudaat, maalmaha farakutiriska ah, sida Allah uu yiri wadhkurullaha fi ayaamin macduudatin. aktharul mufassiriin waxay yiraahdeen ayaamul macduudaat waa ayaamu tashriiq ay yiraahdeen. Allah subxaanahu wa ta'ala baa la xusayaa marka dhikrigiisa la badinayaa. xilliyo kala duwan baa ilaahay la xusayaa. salaadaha ka bacdi Allah baa la xusayaa. marka xoolaha la biraynayo ama la gowracayo Allah subxaanahu wa ta'ala baa la xusayaa. marka wax la cunayo la cabayo Allah subxaanahu wa ta'ala baa la xusayaa ayaamu tashriiq, oo xoolaha udxiyada hilbahoodii marka la cunayo Allah subxaanahu wa ta'ala baa la xusayaa. markii jamaraadka la tuuranayo marka waa bil oo waxa weeyaan fadaaishidan waxa weeyaan noocyadeeda kala duwan oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa weeyaan noogu talagalay inuu ka faa'iideysano khayraadka aynu sameeyno oo la doonayo in laga faa'iideysto. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.